guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland oo uu hogaaminayo guddoomiyaha guddidaasi xildhibaan Maxamed Jaamac Liibaan ayaa howlo shaqo ka bilaabay magaalada Berbera. Guddida oo saaka xil hore soo gaadhay magaalada Berbera ayaa kulan la yeeshay Barsaab ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Hindi iyo xogayaha gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleebaan iyagoo halkaasi guddidu warbixin ka siiyay howlaha shaqo ay u yimaadeen. sidaanu idinku soo dirnay jadwalkii warbixinta gobol ahaaneed waxaan u soo baxnay kormeer shaqo oo guddida dabagalka ilaalinta hantida qaranka ah oo laba qodob daaranaayo guddideeni had iyo jeer waxay u xil saaran tahay marka laga tago korjoogteynta guud xisaab xidhada dawladda ee sanadada tegay dib u soo hubintooda marka seasonka waxa marayay isaguna xisaab xidhkii 2022 aanu mashaariicihii iyo kormeerkiisii iyo hay'adihii xisaabtan ku jiray inaan soo iyaga lafteeda soo kormeerno gobol ahaan waxa kale oo soconay korjoogteyntii guud ee golaha wakiilada iyo guddiga dabagalka ku lahayd hay'adaha dawladda waxa kale oo iyadana aanu soconay xilligan kala guurka ah inaanu iyadana maxaa la ilaalinta hantida iyo dabagalkeeda iyo hay'adaha dawladda ee gobolka kala duwan meelo aan soo marnay intii aan ka gaari karno safarkaygu qodobadaas u daaranaa xafiiska Barsaabka iyo gobol ahaan idinkuna waxaad hinday hay'adii isku xidhaysay gobolka iyo kadankii gobolka laga soo galayay guud ahaan inaanu idinka warbixino shaqada iyada iyo howlahan u soconay qodobkaasi waa qodobka labaad mas'uuliyad la mid ah taa golaha wakiilada saaran baa xafiiska Barsaabka laftiisu waa korjoogteyn iyo isku xidh iyo ilaalin xaaladaas wixii shaqo caadi hore u socday waa meesheeda laakiin xaaladda kala guurka ah warbixinaha miidiyaha soo galgalayay institutionada qaar iyo waxyaabo la xiriira hantida dawladda iyo arrimo badan la xiriira arrimaha la xiriira marka iyo foojignaan ahaan wixii idinka laftiinu qodobada ka qabateen iyo wixii kala socotaan iyo wixii warbixin haysaana in idinkuna naga warbixisaan marka kulli bayn wixii wara isaga la wadaago warbixinaha iyo imaatinka iyagaba xaq baan u lahayn marka insha Allah arrimaha soconnaa waa intaa uu Maxamed sheegayo waxna waa wixii hore mashaariic ahaa ee soo fulay ama xagga dawladda ka soo fuleen ama xagga hay'adka ka soo fuleen dabagalkoodii 22 iyo 23 ba labada sanaba waxaan malaynayaa buuq baa iskaga jirayo wax badan baan la dabagelinin midna waa tan hadda yar oo badan marka dawladdu isbedelaan dad badan baa chance ka dhaxdayo hoos galiyo marka taa qudheedana in laga feejignaado inkastoo dawladdu ay kulliba guddiga loo saarayo arrintaas aanay dhinaca kale Barsaab ku-xigeenka gobolka Saaxil Nuux Maxamed Saleebaan iyo xogayaha gobolka Saaxil ayaa halkaas iyagu uga mahadnaqay guddida sida ay uga go'an tahay ilaalinta hantida qaranka iyadoo lagu jiro xilligii kala guurka magaalada Berbera ugu horeyn waa nabadgelyo xaaladeeduna runtii si qurux badan oo ayay u socotaa ta kale ilaahay baa mahad leh in doorashadii quruxda badnayd ee nabadgelyada ay dalka inooga qabsoontay si nabadgelyo ah oo qurux badan madaxdii iyo mas'uuliyiintii tartamaysay ay isku hambalyeysay taasina waa guul kale oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu gaaray mar kale wax badan oo runtii ay doorashooyinkii madaxweyne waxay daahir yaal ka ahayn waxaan ka baranay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinkan inuu hirgeliyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdina insha Allah waxaan ka baran doonaa doorashooyinkan isku sidkan ay saarka inuu isaguna hirgeliyay oo runtii iyaduna dhiiranaanteed iyo ku dhaceediyo ma garanaysaa lahayd runtii taasina waa sharaf in madaxweynaha cusub ee runtii yimidna waa soo dhaweynaynaa aanan hambalyeynaa hambalyadiisina halkan baan ka dirnay markalena waa soo dhaweynaynaa intaas waa intaa waan daydi ka mahadnaqaynaa waajibkiina shaqo inaad gudateen oo annagana noogu timaadeen maanta qayb ka mid ah runtii
waajibkan aad haysaan waa xil aad iyo aad u culus dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka marka la yidhaahdo culayskeeday leedahay waa ammaano ka culus ammaanooyinkii kale a hayseen oo marka hore a dhaarateenba ammaana hayseen oo mas-uuliyadda hayseen haddana marka tiimkan loo sii igmado hawsha noocaasa waa hawl aada sensitive oo culayskeeda iyo baaxaddeeda leh runtii annagu ka maamul gobol ahaan sida aad sheegteen waxaanu gaargaraynaa dhammaan hay-adaha dowladda ka howlgala gobolkan saaxil axaddii ayaanu runtii la shirnay dhammaan isuduwayaashii gobolka saaxil ka tirsanaa ee u joogay hay-adaha iyo wasaaradaha waxaanu kala hadlaynayna waxay tahay qodob kale aada maanta u socotaan ee ahaa ilaalinta hantida qaranka wakhtiga kala guurka ah ee muddadaa lagu jiro runtii si fiican oo gobolnimadana waanu isula qaadanay foomkii madaxweynuhu uu soo gudbiyey ee ahaa in lasoo bixiyo warbixintii gobolladana waanu u qaybinay si ay ugu soo qoraan maxay tale mid waliba wixii hantiya ama gaadiid ha noqoto ama dhul wasaaraddu leedahay ha noqoto ama bina ay wasaaraddaasi ama hay-addaasi leedahay ha noqotee foomkiina waanu dhiibnay waanay soo buuxiyeen wixii yaraa miidiyaha kolley miidiyuhu iminka saxaafadda caadiga ah waxaa ka xoog badan shakhsiyaadka wax qoraya ka xoog badan markaa shakhsiyaadkaa ku go-aan qaadan mayna laakiin wixii aragtaan unba idinku go-aan qaadan doonta gobolka saaxil waxyaabaha uu ka nabadgalay waxaa ka mid a waxyaabaha lasoo sheegayo hal meel keliya taa wax yar ka soo dhawaaqeen wixii soo dhawaaqaysna markiiba waanu tagnay wixii aanu ka qabo waajibkaygina waanu ka gudanay marka idinkuna waaba ku socotaanoo tii dee waaba qorshahaydu ku jirtaa waan arkay ciddaa la kulmaysa waa ka mid marka taana insha allahu idinkuna waydi soo arki doontaan annaguna waajibkayagiiba horaan uga gudanay wixii markaa muuqday ee la sheegay markaa hortay gobolka saaxil sidaa weeye waa insha allahu idinkuna dee indhihiida idinku soo arki doontaan naqaynaa oo soo dhaweynaynaa guddiga dabagalka hantida qaranka runtii waxay ka mid tahay hawlahana haysaan hawlihii laydiin igmada ee qaranka aa u hayseen oo laydiin doortay waa ku mahadsantihiin inaad xilkiina ka soo baxdaan shaqadiina garataan sidoo kale waxaynu ognahay xilliga systemku isbedelo ee dowladdii hore tagto ta cusubna aanay iman xilligaa gaabku yimaado waxaa yimaado markaa loss of power in awooddu dabacdo waa xilliyada luusigu iman karo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahadsantihiin inaa xilligaana aad garateen inay xilligii ku habboonay tahay inaad hantida qaranka iyo ummaddiina iyo dalkiina iyo dadkiinaba aad u dabagashaan waxaa kaloo mar labaad idinka mahad celinayaa sida quruxda badan aad u garateen inay hawl waliba ka bilaabanto xafiis gobol oo uu yahay ridda iyo albaabka laga soo galo annaguna wixii xoogana waan idin siin doonaa wixii shaqaana idinla qaban doonaa mar labaad iyo mar saddexaad bana aad baad ugu mahadsantihiin ugu dambeyntiina guddida hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan oo uu hogaaminayo xildhibaan maxamed jaamac liibaan ayaa kormeeray haamaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera halkaasi oo si diiran ugu soo dhoweeyeen maamulka haamaha kaydku xamse jaamac yare saaxil midiya berbera.